بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة يتحنيه بوجودك بوجا بيشنا إنك سوق قادنا إنه بوجا الله يقانو شروط النهضة أو قري مالك بن نبي أما بتيررك هرمرك أما تيررك البحر ماذا با إنه كتل ما مكرنا بوجن waxaa markii koobaad uu ku soo baxay luqadda Faransiiska sanadii 1957 waxa loo turjumay luqadda Carabeed iyadoo wax yar lagu daray ama lagu kordhiyay talooyin ku saabsan dadkii ku akhriyay luqadda Faransiiska مالك بن نبي وقراء إن كبدن تومبو قري أنت بدنا وحكا قراء دواتوين كبلشدة واحد بدنا كسو بيري أركتدها إسلامية كل سنة هرمارين تابكم أنت بلشوينك يوحيابها بلشوينك دبوا عليها ومحاصرة بوجني وحوكا كوبين هاي لبقى يبودوا وين قيبت هراء قراء وحوكا جهاد ليا تكتدي أما بتاريخ ده يو تاجنت وقتها هذا تاجن هي دعوين كل حنيرة قبل لبعض بوجنا وحقراء وكهذا تمادة أو مستقبلك بلو جبوا جبا قراء وحو سواق عذنيا كان أنت هالجمياشي أنت بدل له الجماعي جميستياشي وضمادة إسلام كما وضمادة أفريقيا وقراء النكسو تشيدو جميسنا وحو كور رميا كان أنت سينا هيد كالين شرفن إسلامر كاسينا وحو جوين ريحة يا أما با كل ريحة يعني لا ضرران جميستها سعي هيد كترترسي جود الدينات إلى أنت كرام دوله وحوليه هي كالنتا هلجنة وقت جالس يشرتي قرنجي سجال طبناد يو ربعي هراء قرنجي لبعتناد با إن هيدا كالن أي أستانو هيدا إن عن لإيجين مشكلة دهن جميسية وحيابها كياني لكن كلية أود السعر إن لا دجال لما أبى لها الجمبة جميستياشة تسعي أستانو هيد بليه وعكور رمية برشوينكو سكستو أو هلجن وجالان haddii aanay baranin ama aanay darsin dhibaatooyinkooda bulsheed iyo mushkiladu halka ay ka yimaadeen iyo sida xalka loo heli karo sidoo kalena aanay garanin waxyaabaha ilbaxnimooyinka koriya ama kor u qaada iyo waxyaabaha dumiye hoos u dhiga inaanay bulshadaasi ka baxaynin dhibaato iyo mushkilad waxa uu ka waramayaa tiirka ugu weyn ee waqtigaasi gumaystuhu jiray halganada jiray wadamada islaamka ama wadamada Afrika ay sameeyeen waxa ugu weyn guntinta isku xidhaysay inay ahayd guntinta qabiilka waxa uu leeyahay guntintaasi waqtigaasi halgan wax badan bay taraysay oo waxay bulshooyinkaas ku dhiirisay inay iska kiciyaan gumaystayaashii laakiin waxa uu leeyahay may ahayn fariin bulshadu ay ka wada midaysan tahay ama la wada leeyahay ee fariin qabiilaysan bay ahayd waxaanay ahayd buu leeyahay fariin aan lahayn hiigsi la garan karo laakiin waxa ahayd buu leeyahay fariin caadifad iyo laablakac ku dhisan waxa uu leeyahay ilbaxnimooyinka wax kale ma aha ee waa silsilad soo taxan bilowgii nabi aadan ilaa iyo maalinta suurka la afuufayo ee dunidan la laabayo ama la rogayo waxa uu leeyahay silsiladaasina bulsho kasta ama casri kastaaba wixii uu ku darsada ama xalqada uu ku leeyahay taxanahaasi ayuunbay taariikhdu sheegaysaa waxa uu leeyahay caadooyinka taariikhda waxa kamid ah inaanay toosinin bulshooyinka hurda laakiin ay u dayso hurdadooda hurdadaasi dhexdeedana ay ku arkaan riyo marna qurux badan oo farxad gelisa marna fool xun oo ka naxisa mar qurux badan oo farxad gelisa oo ay arkaan dadkoodii hore iyo halganadii ay soo galeen gumaystaha iska kiciyaan isla markaasina ay ku farxaan inay gumaystaha iska kiciyaan marna murugo gelisa oo ay arkaan gumaystihii inuu tagay laakiin ay ku hareen hoggaankoodii dad kaligood taliyayaal ah isla markaasina bulshadaasi culays iyo dhibaato ku haya iyaga ku adag oo ku kakan wixii ay lahaayeen ama wada lahaayeen ku takrifalaya ama uga awood sheeganaya waxa qoraagu leeyahay waxa jira sunne rabbaani oo ilaahay koonkan inuu ku dhaqnaado oo soo dajiyay oo ah markasta oo hab fikirka iyo garaadka bulshadu uu kabco in ay meesha ka baxayso sanamyada la caabudo markasta oo garaadka iyo kasmada bulshadu ay hoos u dhacdana ay awoodeysanayso ama ay kor u kacayso sanamyada la caabudo sanamyadaasi marar badan uga ma jeedo sanamyadii laga qaab diineed loo caabudayay laakiin waxa soo qaadanaya sanamyada la xiriira qaab dhismeedka bulsheed ama
qabiil ha caabudaan oo ha dhibirsanaadaan amaba ha uga dambeeyaan wax amaba kursi iyo mansab iyo maamul iyo hanti ha caabudaan oo sanam ha ka dhigtaan waxa qoraagu leeyahay dawladaha ama hogaanada bulsho maamula wax kale ma aha balse waxa weeye dad iyaga ka soo baxay oo dawladnimada waxa uu ka sameeyaa waa bulshada uu leeyahay marka hadii bulshadu ay noqoto bulsho xor ah oo maan furan isla markaana aan la aqbali karin in la gumaysto waxa u soo baxa hogaamiyayaal kula dhaqma hab dhaqanka bulsheed ayagu ku dhisan yihiin hadii ay bulshooyinkaas ay noqdaan bulshooyin taag daran oo caabuda amaba ilaashada waxyaabaha hoosena waxa u soo baxa maamul ama hogaan iyaga dulaysta oo baabiista isla markaana u soo jiida ama aqbala in bulshadiisa la gumaysto waxa leeyahay waxyaabaha inta badan gumaystayaasha keenay wadamada islaamka iyo wadamada Afrika ma ay ahayn ciyaareen ama dheel ay sameeyeen siyaasiyiintoodu balse waxay ahayd buu leeyahay bulshada lafteeda oo iyadu aqbashay in la gumaysto una diyaar ahayd ama aan u dhisnayn qaab ay iskaga difaacaan gumaystahaasi ama aan lahayn ilbaxnimo ay ilaashadaan oo ay horumariyaan waxa uu tusaale u soo qaadanayaa wadamo Afrika ah oo aan marnaba gumaysi cagta soo dhigin laakiin ay ka jireen wax kasta u fududeynayay in la gumaysto sidoo kale waxa uu tusaale u soo qaadanayaa wadamo dunida ah sida Japan iyo Jarmalka oo kale oo leeyahay iyadoo dagaalkii kadib la gumaystay haddana markii ay gumaystihii ka kacay bulshooyinka ilbaxnimadoodii iyo xadaaradoodii iyo horumarkoodii mar walba waxay noqotay mid sii dhisan oo kobocda oo dhisanta waxa uu leeyahay qaabka ugu weyn ee bulsho loo bedeli karaa waxa weeye in qofku isbedelo in qofku uu garto waajibaadka isaga saaran halkii uu isagu raadin lahaa xuquuqaha ka maqan waxa uu leeyahay wadamada islaamka iyo wadamada Afrika badankooda waxa ay awood saaran ama bulshadoodu inta badan ay ku doodaan in xuquuqi ka maqan tahay cid walibana waxay raadinaysaa xuquuqda laakiin ma jirto amaba ma wayar tahay cid istirtay oo ku dhiiratay waajibka isaga ka saaran bulshada waajibka ka saaran dalkiisa inuu qofkaasi guto inta badan qoraagu waxa uu doodihiisa ku dhisayaa si bulshadu isu bedesho aayadda quraanka ah ee oranaysa ilaahay qoobna ma bedelo ilaahay iyagu isbedelaan marka wuxuu leeyahay si xal loo raadiyo oo bulshada mushkiladaha horumarineedaha haysta iyo mushkiladaha ilbaxnimada haysta xal loogu raadiyo waxay wadamadii islaamka ama wadamada Afrika intooda badan halkii laga raadiyay qof waliba aragtidiisa inuu cabiro tusaale ahaan qofkii wadaadka waxa uu u arkay mushkiladu inay tahay mushkilad caqiido dabeetana waxa uu awood saaray in bulshada caqiidadeedii la dhiso halka qofkii siyaasiga ahaa uu arkay inay tahay mushkilad siyaasadeed dabeetana lagu daalay qof waliba inuu aragtidiisa wax ku xalliyo waxa leeyahay taasi waxa ay keentay inaynan xanuunadii baarin laakiin astaamihii oo kaliya aynu ku mashquulo waxa leeyahay waxay sidoo kale dhalisay inaan qofkii laga daweynin mushkiladihii iyo xanuunkii hayay ee la siiyo amaba la isku dayo markaasun in xumada laga jabiyo oo aan xanuunkii toos loo baarin waxa leeyahay aragtiyaha qaar waxa ay qabeen in si xanuunada bulshada loo baabiyo in galbeed loo talaabo dabeetana la soo qaato ilbaxnimooyinkooda oo shay kasta oo galbeed yaala la soo waarido oo wadanka la keeno taasina ay xal u noqonayso mushkiladaha laakiin waxa leeyahay ismaynaan weydiinin maxaynu u bugnaa maxaase daweyno waxa uu qoraagu ka waramayaa si ilbaxnimo loo helo ilbaxnimo waxay ka dhalataa buu leeyahay qof loo geeyay tamar amaba ciid sida uu isagu qoraayo iyo waqti waxa leeyahay saddexdaasi oo la isku daray ayaa ilbaxnimo ama horumar dhaliya waxa leeyahay ilbaxnimooyinku inta badan waa kuwa ka bilowmay waxii samada ka yimi dabeetana bulshadaasi baraarujiyay waxa uu tusaale u soo qaadanayaa ilbaxnimada diinta islaamka ama ilbaxnimada islaamka iyo ilbaxnimada diinta kristaanka waxa uu isbarbar dhigaya marka labada ilbaxnimo iyo qaabka u koreen waxa leeyahay guud ahaan in ilbaxnimo la gaaro waa wax suuragal ah maadaama ay jirto diintii isku xidhaysay saddexdan ama isla falgelinaysay qofkii iyo ciidii ama walaxdii iyo waqtigii saddexdaasi marka ay loo helo waxyi samada ka yimi oo isku xidhaya wuxuu leeyahay wax suuragal ah in bulshadaas ilbaxnimo gaadho ama bulshadaas horumar gaadho marka uu ka hadlayo saameynta ay diintu ku leedahay ilbaxnimada waxa uu soo qaadanayaa qoraagu aragtidii ibn Khaldun ee uu kaga hadlayay qaayasoorka qofka iyo bulshada ee marka la doonayo in la cabiro heerarka horumarineed ee ahaa in ruuxi jirto
caqli dabeetana uu hoos ugu soo dhacaysay baahiyaha bulshada ama baahiyaha qofka ee ku dhisan jirkiisa iyo dhiiggiisa. waxa uu tusaale u soo qaadanayaa dhacdadii saxaabigii Bilaal Allah ka raali ahaade. waxa uu leeyahay Bilaal markii la cadaabayay ee uu farta taagay ee uu ku dhawaaqay Allah Allah waxa waday riixayay ama waxa hadlayay ma ay ahayn caqligiisii mana ay ahayn buu leeyahay baahidiisii ama qariisadiisii laakiin waxa hadlayay waxa ahayd ruuxdiisii buu leeyahay oo dabooshay ama ka kormartay labadii kaleba. dabeetana taasa keenaysay buu leeyahay inuu cadaabka u adkaysto isla markaasina uu u dulqaato wixii lagu takrifalay ee lagu sameeyay. waxa uu leeyahay baahiyuhu ma kormaraan inta badan ama qariisada qofku ma kormarto ruuxdiisa laakiin waa marka qofka ruuxdiisii daciifto ama maamulka ruuxdiisii iyo wixii uu aaminsanaa ay gudihiisa ku daciifaan markaas uu bay baahiyihiisu ka kormari karaan buu leeyahay ruuxdiisii iyo aaminaadiisii iyo aragtiyihii uu qabay. waxa qoraagu qaybta dambe ee buuga inta badan xooga ka saaraya inuu ka hadlo saddexdan isla falgalaya ee uu arko inay ka dhalato ilbaxnimo ee qof iyo ciid iyo ama walax iyo waqtiga. saddexdaasi ayuu inta badan xooga ku saaraya. waxa uu ka waramayaa mid kasta iyo sida ay mushkiladaha soo waajihi kara iyo sida uu uga bixi karo. waxa uu ka waramayaa si qofku qof saameyn leh u noqdo bulshadiisa wax ku soo kordhiya inuu uu noqdo qof shaqeeya uu noqdo qof aqoon leh uu noqdo qof isla markaasi uu leh dhaqaale uu bulshadiisa wax ku tari karo isaguna wax ku soo saari karo. waxa uu ka waramayaa marka uu ciidda ka hadlayo tusaale u soo qaadanaya in laga faa'iideysto waxyaabaha maadooyinka ee dhulka hoostiisa ku aasan amaba looga faa'iideysto dhulka in dhul beereed laga sameeysto dabeetana bulshadaasi isku filaansho ay gaari karaan. marka uu ka hadlayo waqtiga waxa uu leeyahay diinta islaamku waxay inta badan awoodda saartay ama qofka ku dhiirisay inuu waqtigiisa uga faa'iideysto sida ugu wanaagsan. waxa uu ka waramayaa qoraagu mushkiladaha kale ee la xiriira bulshooyinka sida mushkiladda dumarka oo uu arkayo inay tahay mushkilad u baahan in si gaar ah in loogu eego una arko inay tahay mushkilad bulsheed aanay ahayn mushkilad inta badan saaran dumarka ama u taala dumarka. waxa uu qoraagu ka waramayaa oo soo qaadanaya tusaalayaal xeel dheer oo kaga waramayo saddexda sida la isugu falgelin karo si loo helo bulsho horumarta. buugani waa buug runtii aad u qiimo badan qof kasta oo awoodaya inuu helona aan kula talinayo inuu raadsado isla markaasina uu akhriyo. inta aynu mar kale ku kulmayno buug wadaag waxaan kaga tegayaa buug wadaag waa adduun wadaag. hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books. Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali, Ingiriisi iyo Carabiga. soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada.